agoonnimana ku soo korshay waxaan halkan maanta codsi ugu tirsanayaa amba ugu dhiibanaynaa madaxweynaha Muuse Biixi gudihiis waa ku baryeynaa waa codsi waa bilaal walaalihiis waxaanu nahay dhammaanteen dad rajo ku nool ah oo subax walba ama haween walba ku seexda walaalkiina marna garabkiina marna saaxiibkiina bir uun waa la soo deyn doonaa please soo day wiilkeen anigoo ah Suldaan Maxamuud Jimcaale bilaal bulshaawi hooyadiis waxaan idinka codsanayaa dawladda barakeyne ee Soomaaliland waxaan ka codsanayaa in cunugaas soo deeyo aniga garabkayga u ahay waxaana ku dhalay burburka waqtiga burburka waana yaraankaygi waxaan ka codsanaa inaad wiilkaas bilaal bulshaawi la yiraahdo magaciisa caadigaana ah Cabduqaadir Cali Maxamuud idinka codsanaya mudane madaxweyne waxaan ka codsanayaa adigoo ah Muuse Biixi aan ka codsanayaa insha Allah taala inaad soo deyso wiilkaas waana agoon cid kale oo maanta adaa aabihi jooga waxaan ka rabaa inaad soo deyso agoonnimana ku soo korshay aan ka codsanayaa inaad mudane aad soo deyso Muuse Biixi madaxweynaha Muuse Biixi adaan ka codsaday waa ka codsada codsiga iga tahay waa ku bariyaa kunya kowjoor waxaan ka rabaa cunugaas inaad soo deyso amaalmarintaadana lama gaari karo marka waxaan rabaa sidan jecelnahay oo ummadda aad cunugaaga iyo la jeceshahay inaad ila jeclaato insha Allah taala waxaan ka codsaa in si degdeg aad soo deyso waxaan ka rabaa cunugaas xurriyadiisa inaad dib iigu soo celiso السلام عليكم مجيء واسمهان علي محمود وبلا بلشاوي ولاجيس waxaa ka codsanaya madaxweynaha Muuse Biixi inuu noo soo daayo walaalkay bilaal inuu dib noo soo daayo xurriyadiisa mar walba murug iyo fikir iyo problem ku jirna hooyadana awoonimo noo soo korisay ilaa hadda hooyadeen way iska xanuunsan tahay murugtiisa la jiiftaa anagana sidoo kale walaalkeen waa yaraankeena mana ka marano gudihiis waa ku baryeynaa waa codsi waa bilaal walaalihiisa waxaan ku leenahay madaxweyne mudane waa ku baryeynaa noo soo daa xurriyadiisa dib noo soo sii waana ku baryeynaa codsiga naga tahay haddaan ahnay familka bilaal bulshaabi codsiga naga tahay gudihiis waa ku baryeynaa ma awoodna qiiradeena maanta waxaa ku saabsanaa weligay kaamir ma soo hor istaagin maxaa ugu qasbay walaalkayga oo iga maqan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب تقاليد أسود وهذا إذا لا يهمك وهذه مرلوات هدي أتامرك كوجو رسم مقالك وكسو جاروح كعسنا نجلك سبسكرايب كريسة مقالك نايلا كريسة وولاش دقيقة هدي أتامرك كوجو رسم مقالك وكسو جارن وحكا عسنيا أنا فيديو بلاقي ساتد جنال قراي سبسكرايب كريسة سبسكرايب كواي مهم laagtan sidoo kaleeto adigana waxba ma ka dhibayso haba yaraatee balse laakiin aniga faa'iido tahay horena waa idinku sheegay haddana waa idin sheegaya gabar Itoobiyaana tartan kula jira barka bal subscribe-ka iyo saara waa mahadsantiin walaalahayga qaaliga asxaabta hore noo la joogteen waa idin mahadcelinayaa si walba oo muuqaalkii u daawanaysan sida video gordhiciisa ku aragtay waxay ahayd maamadii dhashay bilaal bulshaawi oo ooynaysa cabanaysa wiilkeedana sheegaysa dhibaatooyin badan ee ku soo korisay iyo maanta oo xabsi ku jiro baaqna u dirtay shacabka iyo dawladda Soomaaliland iyadoo ka codsatay in wiilkeeda loo soo daayo asxaabta kaleeto dhamaantiin muuqaalka daawaneysana waxaan rajeynayaa in muuqaalkan u sheer gareyn doontaan Allah subhanahu wa ta'ala u bari doontaan in wiilkeeda xabsiga uu soo daayo maanta waxa dareemi kara hooyo Soomaaliyeed cunugeedii dhashay uu xabsi ku jiro xabsi oo ku jira balse wali aan loo soo daaynin oo xabsigii ku jiro waxyaabaha lagu haystana iska yihiin waxyaabo ay caalamka Soomaaliya iyo waxyaabo kaleeto balse laakiin dhamaanteen aniga xataa deeqa ah
asxaabteyda daawanaysa dhammaanteen waa wada duceynaynaa inuu Allah subxaanahu wa tacaala uu xabsiga uga soo daayo dhib malahan koley xabsiga uu ku jiro halka uu ku sugan yahay meel dad Soomaaliyeed joogaan waay balse laakiin maamadan wiilkeedii aysan arkin muddo 2 bilood ka hor ayaa la xiray muddo 2 bilood ayuu xabsiga ku jiraa cid soo deysay malahan cid maxaa loo xiray dhahday malahan madax ka hadashay ama koley dawlad markii qof xirato dawlad kale ayaa soo deysa maadaama ku xiran yahay Hargeysa iyo Somaliland u xiran yahayna Somaliland maanta u xiran yahay wiilkaas wixii lagu xiray iyo wax kale to aniga garan maayo balse laakiin waxa wanaagsaneed in dawladda Soomaaliya u tagto u soo deeyaan koley qof shacab ah ma soo deyn karo sidee la tahay adinkana maanta waxa sameyn kartaan in muuqaalkan u sheeg diraysan maamadan unu duceysaan in Allah subhanahu wa ta'ala wiilkeeda uu xabsiga ka soo bixiyo maanta wax qaban karo oo kaliya waa Allah subhanahu wa ta'ala adduunkan in wada kaste muuqaalkan hadii aad daawatay aragtay maamada sidii u hadlaysay waxa jecelahay in blaatin tahay laakiin xidoontid aniga deeqaana musabiixi haduu daawanayo oo muuqaalkayga daawanayo inuu daawanayo u maleynayay waxa leeyahay bal maamada wiilkeedu soo daay kulli wax lagu haystana garan maayo dhamaan shacabka reer Somaliland iyo dawladda reer Somaliland ba dhamaantiin waxa idin ka codsan lahaa deeqahan ina maamadan wiilkeeda garab ku siisaan sidii loogu soo deyn lahaa waxa kale oo ayadana arinkan gali karta dawladda Soomaaliya ama madaxweyne Farmaajo ahaado ama ra'iisul wasaare problem wahay ha ahaado in ra'iisul wasaare khayr bis xasuusta kan kale wili magaciisa ma qabanin dabcan yaa la yaabin halo soo daayo wiilkeeda adinkana asxaabta muuqaalkan daawanaysa bal u duceeyo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala xabsiga uu soo daayo maanta xabsiga ku jiro waa xabsi Soomaali balse laakiin waxa ka darnaa lahayd inuu gaalo xabsigooda uu ku jiro dhibaatada maanta haysato dhibaato ka weyn ayaa ku dhici lahayd inkastoo xabsi uu fiicneen oo meel uu qofka uu xurnimo uu haysanin oo fiican aysan jirin waxaan rajay lahaa madaxda reer Somaliland inay ka soo hadlaan waxyaabaha loo haysto wiilkan hadii uu kiskiisa uu fudud yahay wax yar loo haysto kulli wax loo haysto garan maayo aniga in ay ka hadlaan oo kiskiisa adeegiina ay sheegaan kulli qofku qof wax dilay maahan qof adduunkan waxa adag oo kaliya waxa waa nafti nafkiisa oo kaliya ay adag inshallah ma darado Hargeysa tagay muddo la 10 biri ayada dhameen hore ayaa laga xiray ilaa haddana uu xiran yahay maamadii dhashayna waa aragtaan sidii uu oynaysa sidii uu caawinaysa waa arkaysaan dhamaantiin waxa idin rajaynayaa caafimaad maamadan u soo duceeyay insha Allah wiilkaas nagu soo duceeyay inuu xabsi ka soo baxo waa wiil ogoon ah maantana ay haysanin aabo qofka waxa dareemi kara aabaha boosku taagan yahay ama baanta waxa dareemi kara qofka aan aabaha haysanin hadii uu aabis noolaan lahay ila maahan inuu waqti xaadirkan uu xabsi ku soo jiri lahaa ama uu arintan ay haysan lahayd balse Allah subhanahu wa ta'ala aabis qaatay oo adduunka ka waday adduunkan asigan wax uu qaban karaa wuuna ka soo deyn karaa xabsigaas Allah u fududeeyo dadka ogoomanka aan in xaq laga galo ma fiicno inkastoo qofku dumar qaan gaaro oo agoon aan ahayn laakiin uu u baahan yahay aabo garab istaagsan wax walba uu qabto uu u baahan yahay aabo garab istaagsan wax walba uu qabto marka asxaabteeda qaaliga ah oo ku meesantii sida qiimaha iyo qadarinta mudan ee muuqaalkayga daawanaysiin waan idinka mahad celinaa sarwaada ayaa idin leeyahay video-gan inoo la garay channelkana waa subscribe garay muuqaalkan hal share gareeyo dhamaantiina u soo duceeyay inuu maamada wiilkeeda xabsiga Allah ka soo daayo waana maasantiin walaal qaaliya waan idinka mahad celinayaa sida qiimaha qadarinta mudan ee muuqaalkayga u daawanaysiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh